waxaa jirtay gabar walaashay ah oo muddo 16 sano ah reer laheed xanuunsaneed xanuunyo badan oo aan la soo koobi karin ayaa gabadha hayay dhakhaatiir badan oo dalka gudihiisa iyo dibadiisa ahaataa waan geenay sida Kenya oo kale dhakhaatiirta u qaalisan waan geenay Hindiya oo kale mar baan u dirnay caqabado badan ayaan kala kulannay qarash badan ayaan galnay waxba ilaahay nagama garanin daawadii annagoo iska sabarnay gabadhii muddo 16 sano ay reer laheed 2019 ka bilowgiisii ayaan waxaan isbaranay aad ku salaam walaal waa mahadsantahay jazakallahu khayr daawada ii soo dirtay wax weyn baan isaga gartay ilaahay baa ku mahadsan markii koowaad walaal aad baa u xanuunsan jiray ilaaha mahad iskale marka waxaan joogaa America xanuunkan sanado badan ayuu yahay dhaqtar kasta waan u tagay soo marka daaweyn ii soo qorin daaweynkii wax waa ii tirwaayeen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمان ولا لها صومالد والسلام ملك سجوكتان الله يدن بركيه waxaan rabaa inaan ka hadlo xanuun aad iyo aad runhaantii u dhibay hooyooyinkeena Soomaaliyeed isla markaana ka dhuryaamiyay oo ragaadiyay isla markaana ka hor istaagay dhasha Allah bixiyo subhanahu wa ta'ala waxaan rabaa in aan maanta calaamadihiisa inta ugu badan aan sheego xanuunka loo yaqaan dabaysha inta aanan u gudbin dabaysha iyo dhibteeda iyo maaragtay sida ay u gasho hooyooyinka Soomaaliyeed iyo qaabka ay u saamayso bal horta ila dhageysta hooyooyinka Soomaaliyeed sida ay ahaayeen iyo sida hadda ay u caafimaadeen iyo sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu u siiyay ilmaha Allah bixiye Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ilaahay mahad iskale oo maqalqaan lana abuuray magacyaha qurux badan iskale ma sha Allah ilaahay ay mahad u sugnaatay alxamdulillah ilaahay mahad iskale marka waxaan joogaa America xanuunkan sanado badan ayuu yahay dhaqtar kasta waan u tagay soo marka daaweyn ii soo qorin daaweynkii wax waa ii tirwaayeen maxay ahayd shifa la xiriiray daawooyinkana ilaahay igu caafiyay ilaahay ayaa mahad iskale ilaahay igu caafiyay ayaa mahad iskale xanuunyo badan oo aan dareemayo ilaahay iga qaaday marka alxamdulillah mahad ilaahay ay u sugnaatay marka xigana al-shifa ayaa u mahad celinaya khayr Allah siiyo marka maxay ahayd ilaahay ma mahad iskale waxaan dareemayaa caafimaad ma sha Allah caafimaad waxaan dareemi jiray markii hore kuleel badan waxaan dareemi jiray qaarka dambe oo ah i xanuuna waxaan dareemi jiray madax xanuun waxaan dareemi jiray korkayga yani wuu gubnaa alxamdulillah kalarkayga ayaa ilaahay ii soo celiyay daawadaas aan isticmaalay daawadana waxaa keena al-shifa ayaa u mahad celinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ما شاء الله تبارك الله ويلشان waxaan salaamayaa walaalayaasha al-shifa jooga ma sha Allah waan salaamay Cabdixakiin iyo waliba Cabdixakiin aadan ku salaamo walaal waa mahadsantahay jazakallahu khayr daawada ii soo dirtay wax weyn baan isaga gartay ilaahay baa ku mahadsan markii koowaad walaal aad baa u xanuunsan jiray waxa ka socon weyn jiray cagaha lugaha maaragtay baa ka socon weyn jiray caajis fara badan guriga kama dhex kici jirin waan iska dhex fadhi badan guriga inaan ka baxa ma jeclaan jirin markaan seexda waan soo boodi jiray marmarka qaarkood walwal baa qaban jiray ama waa cabsan jiray sirrta ka soo boodi jiray axyaana waxa sameyn jiray baqdina ay gali jirtay markii dambe waxa igu dhacday maxay ahayd inaan marka sanka marmar iga imaan jiray afka madaxa meela waxa iga buurnaan jireen yar oo dhinaca maaragtay madaxa iga buurnaan jireen korka iga danqan jiray madaxa ilaahay fadligiisa wiilashiisaan dhageystay may xanuunka insha Allah idin dhameystiro waxa igu dhici jirtay marka meeshaan waxba iga boodboodi jiray xudunta hoosteeda oo caloosha gudaheeda ah waxba iga boodboodi jiray riximka inay taa u maleynaya guriga iyo ninka iyo waxa dhan ma jeclayn buuq ma nagu furnaan jiray mar walba aniga iska buuqsanaan jiray waxana qayb saaid buu ahaa
markii dambe falilah alxamdi waxaan dhageystay walaalahan baan maaragta la xiriiray ilaahay ku mahadsan cabdixakiin aan la xiriiray cabdixakiin daawooyinka ii soo diray oo aad iyo aad maasha allah ilaahay khayr fara badan ha siiyo daawadii koowaad markaan bilaabay waxaa nagu dhacday wadaadkii baa naga xanuunsaday wuxuu keenay buuq inuu maaragtay xanaaqo shaqada diido guriga joogo maalmo dhan nagu xanaaqo ilaa si kale nagu noqdo daawadii kale markaan dhammaystay tii koowaad maasha allah everything way fiicnaadeen waxaa jirtay gabar walaashay ah oo muddo 16 sano ah reer laheed xanuunsaneed xanuunyo badan oo aan la soo koobi karin ayaa gabadha hayay dhakhaatiir badan oo dalka gudihiisa iyo dibadiisa haataa waan geenay sida Kenya oo kale dhakhaatiirta u qaalisan waan geenay Hindiya oo kale mar baan u dirnay caqabado badan ayaan kala kulannay qarash badan ayaan galnay waxba ilaahay nagama garanin daawadii annagoo iska sabarnay gabadhii muddo 16 sano ay reer laheed 2019 kan bilowgiisii ayaan waxaan isbaranay al-shifa ayaan isbaranay waxaan oga warramay xaaladda gabadha iyo xanuunyaha gabadha ayaan oga warramay haddii aan oga warramay daawooyin aad u badan ayayna siiyeen waxaa ka mid ah xanuunyaha gabadha haddii ay idin dulmaro caadada oo kale gabadha aad bay ugu dhib qabi jirtay inay muddo badan caadada waaso kadib ay hesho marka qaar ay ku dhaco istaagi waaso ilaahay kuma naaraatay waxaan ay dhahaan musiibiyaanta ay dhahaan oo haweenka ku dhacdo dabeesha inay maxaa dhihi jiray abtay oo caloosha ay ku cuni jirtay xanuunyo jirka iska xanuuni jiray gabadha xanuunyo badan oo aan la soo koobi karin ay u badnaayeen laakiin caadada iyo musiibiyaanka way hadda noo muuqday u badnaayeen iyo xanuunyo badan oo qarsoon hadda anaga aanan marka ayada aanan dhihi karin xanuunkan hayo dhakhtar kasta markuu baaran nalay waxuma qabto ayaa u badnaa kadib waxaan isbaranay oo wada shaqeyn sameynay al-shifa ayaan isbaranay al-shifa markaan u warranay gabadha xanuunyadeeda uga warranay gabadha marka ayada Gaarsi ay joogtay laakiin anaa Nairobi joogay xanuunyaha gabadha haddaan uga warramay waxay dhaheen gabadhan waxaa haya dabeel daawooyin dhowr oo 3 bilood soconaya ay u qoreen daawooyinka ayaan gabadhii u qaaday baskaan u saaray way qaadatay 3 bilood ayay isticmaalaysay daawooyinkii markay dhammaadeen alxamdulilah ilaahay uu caafiyey gabadhii daawadii ay siiyeen walaalahan al-shifa ayuu alla ku caafiyey waxaa ka mid ahaa istaalka hadda Abba Hill oo kale markaan tagnay waxay nagu dhaheen gabadhan uur ma yeelan karto waxaa la sameyn bay dhaheen biyaha wadaadka ayaa la qaadi shawada wadaadka la qaadi kadib daawaa lagu dari waa loo beeri bay dhaheen beeritaan qaab kale oo gabadhan ay uur ku yeelan karto waa Abba Hill istaalka la dhihi jiray ayaa saarna dhahay oo Kenya ku yaalo marka qaab kale oo uur ku yeelan karta ma jirto waa ilaa loo abuuro lacag 500 kun aan baxsanaysaan marka waxaan dhahnay Allahan tala saaranaynaa wax annaga allu uu noogu talagalay waan mayne waxaan abuuranaynaa malaha marka al-shifa aad baan maxaa dhihi jiray ugu mahad celinay Allah aad u mahadsan al-shifana aad baan ugu mahad celinay ilaahay baa daawadoodii iyo wixii ayna daawooyinka ayna siiyaan ilaahay aad buu noogu daawo waxaan leeyahay marka dadka xanuunsan dumarka ragga qof walba xanuunsan oo dabeelahan iyo jinka dhibayaan al-shifa yaan loo dayma darnaanin aad baad u mahadsantihiin Allah idin barakeeyo maadaama hooyooyinkan ay ka caafimaadeen xanuunka isaga ah waxaan rabaa inaan la wadaago walaalahayga Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waxaan idin tirinayaa 29 calaamo oo lagu garto gabar ama hooyo haddii aad leedahay calaamadahan iyaga ah sida ugu dhaqsaha badan waa inaad iskaga daaweyso wuu koraa marba marka ka dambaysa heer ayuu gaaraa marka dambaysa uu ka sii xanuun bataa uu ka sii dhib bataa xanuunka dabayshu wuxuu ka bilaabmaa ama waa il ama waa sixir ama waa jin noocay tahayba ayuu ku yimaadaa maadaama hooyadu ay tahay beer wax soo saaraysa ama warshad mar walba wax soo saaraysana wuxuu ka fadhiistaa oo ka fadhiisanaya makaanka markii uu ka fadhiisto waxay yihiin calaamadaha lagu garto kow hooyadu waxay dareemaysaa madax xanuun joogto ah lambar 2 dhabarka oo aad u xanuuna waliba qaybta dambe 3 hilmaan aad u fara badan oo mar walba ay hooyadu dareemayso haddii la weydiiyo marka qaar shalay dharkee xirneed inaysan garaninbo lambar 4 caloosho in ay wax ku dhex socdaan waa markii ay weynaato waliba aad u malayso cunug inuu ka dhaqdhaqaaqayo ama ilmo inay kugu jiraan sidoo kale lambar 5 caadadu inay ka wareerto hooyada ama ay zuusho mar way wareeraysaa marna way ka zuulaysaa lambar 6 dhalmada oo ka zuusha waxaad arkaysaa hooyo sida hooyooyinkan qaar
reere leh 10 sano ama 15 sano ama 6 sano ama 7 sano ama 8 sano isla markaana aan wax awlaad haysanin Soomaaliduna waan ogsoonahay oo qalbigooda mar walba hadaysan waxay rabeen aysan helin aad bay u murgaan ay u rafaadaan lambarka 8aad inay hooyadu daranto daal aad u fara badan xilliga ay hurdada ka soo kacayso oo subaxii waliba lambarka 10aad lugta bidigta way noqotaa laakiin dhanka bidix inuu aad u xanuuno oo waliba dhanka jeexaasa inuu aad u xanuuno si fiican la dhageysto lambarka 11aad hooyadu markay caadadu ku timaado inay dareento xanuun markii hore caadi ahayd aan ku imaan jirin marka ku yimaado yaani markii hore say ahayd hadda way ka gadisnaanaysaa lambarka 12aad qarow hurdada habeenkii oo kale markay seexato hooyada inay qarowdo oo maaragtay ruuxantii ay maaragtay ilmaho laga dilaayo iyo iyadoo meel laga tuuraayo iyo iyadoo maaragtay dad ay dilayaan ama eryanayaan ay ku riyooto lambarka 13aad hurda yari inay dareento halkay ha jirto qof markay ilmaheeda kala seexiso oo xaaji wixii cashadiisa ay siiso oo la seexdo ay hurdo macaantii seexato subax soo ka jirto maya hada way raadin hadii ay seexatana kaba dhirgayso hurdo qarow uu ku jiro oo maxay ahayd caawa dhan qalbiga ay ka soo jeeday ay seexanaysaa lambarka 13aad baa dhahnay lambarka 14aad xaruun makaanka marka aan leeyahay khaasatan laba xilli marka gubasha aad u balees gubasha ay socoto in makaanka aad u baleeso in wax ay ka soo riixayaan iyo xilliga caadada waliba markay aad u weynaato ayay dareemaysaa hooyadu makaanka inuu aad u xanuuno isla markaana aad u baleeso inay waxee ka soo riixayaan waliba markaas khatar way hal iska gaaro insha Allah ta'ala lambarka 15aad cirbaha ciribta ama risbagaadhada waxa loo yaqaano dhankaas labada meeloodba waxay hooyadu u xanuunaysaa si zaa'ida khaasatan qalbihii oo kale ama subaxii markay soo kacayso ay mararka qaar waxay maraysaa ciribta inuu musbaar kaga jiro mana adkaysan karto ruuxantii waa xanuun aad u daran lambarka 16aad infection oo aad iyo aad ruuxantii hooyooyinka Soomaaliyeed ugu soo laalaabta khaasatan xagga kaadimareenka iyo xubinka way ka timaadaa lambarka 17aad hilmaan iyo caro isku jirto marka hore maxaa dharay hilmaan marka waa hilmo iyo caro is wadato caro marka la leeyahay xaaji markuu la hadlo ama ilmuhu ay la hadlaan eray kuma soo celin karaan isla markaa waxay jeceshahay inay cunuga iyo waxa qabanaysa yaani kowba ka siisay gabigiisa maba kala goysaa ilmaha yarka ama odayga markuu la hadlaba 10 eray oo aysan u meelday laakiin hadhow ka xamaato ayay si maaragtay ku tuuraysaa lambarka 18aad dareenka xagga gubasha oo 0 noqda ama aad hoos u aada wax badan waa ka hadlay dareenka isaga say hooyada u fiicnayd oo markii ninkeedu uu ka baqayay ay u tabayso markuu la joogana ay iyadoo dareen soo jiidanayso markan baba kala jeclaba ilmaha ay qolna seexanaysa wax badan waa ka hadlay lambarka 19aad burqaha oo aad u xanuuna khaasatan si fiican ii dhageysta labada garab salkooda ayaa aad u xanuunaya ama mararka qaar sidii oodin ay uga taagan tahay oo kale ay dareemaysaa lambarka 20aad mar walba inay hooyadu ay dalbato furitaan aan biloo beeldayin leesh maadaama gogol aysan jirin dulqaadna uusan jirin waxay mar walba leedahay kaba dhaxbax hadaad dhibta ka baxdo waad ka dhifaysaa waanad ka raaxaysanaysaa lambarka 21aad waxay hooyadu mar walba ay dareemaysaa jajab iyadoo ilmihii ay sugayaan inay quraac u samayso oo u soo adeegto oo ilmihii ay u kacdo oo kala hagto kala kaxayso ayay markaa waxay dareemaysaa jajab iyo daal aad u fara badan isla markaana ay jeceshahay inay sariirta iska sii jiifto ama ay iska sii saarnaato 22 lambarka 22aad waxay hooyadu mar walba dareemaysaa subaxii marka ay soo kacdo labo sidii qof laba hayso ama sidii qof maaragtay calooshiisa dacar ay ka buuxdo waxay dareemaysaa subaxii oo kale labo aad u fara badan lambarka 23aad waxay dareemaysaa laba shay midkood qoyaano ka yimaada xagga xubinka diinta xishood ma laha qoyaano ka yimaada xagga xubinka waliba mararka qaar riix wata ama ur wata mararka qaar
ama qallayl ray inuu qofku uu noqdo oo aysan dareeminba wax loo yaqaano qoyaan iyo mararka qaar qofku xilliga gugasha lagu jiro kale waa dareemi kartaan marxaladaha dadku reeray leeyahay marxalada isbedelaya inay maaragtay qoyaano ay yimaadaan isla markaana istimtaaca kamida qayb kamida ah inay iska weydo lambarka 24 dibiro هناك فرق إنه يحكوا ده السعودان إنا دبرته مرة كقار إنه هايض أي درنته دبرو حراش مرة كقار إنه أور لا ده هاي وكله أو حضرك سأجبر سي لنا الصحادن آن هلين سي إزلي هذا أور باتهاي أو الله في الله إنه أور تهاي أي مركز دم بوحفكنا يديك أما مركز دم حركة سعلاشي هذا الشيء قضي أما نختار مركز أوتو حلي أور ملهد ويا وحن يجبوها أما وحن يجبور المعية الله ما قرنايو ومرحلة يدنا تماتو لمبرك لبعتنا الشنات ولاع قفك إنه درامه ولاع محن كودنا قفك مرول بإنه درامه يولول مروجو مرك قار وحلاه يقولون كده بح وفعلا مركي بناك تكتنا وبناك قفك أو تجنا وحدرامه إنه نستي وهلك إيذا قصو قادته حوار هلكس قصو قادته وقفك قصو نستي lambarka 26 wuxuu qofku dareemayaa barar naasaha xilliga caadada ama cuncun ama xanuun buu qofku dareemayaa intaba way noqotaa oo qofku uu dareemaa inaan marka qaar la taarba kareynaba ama ay karaan lambarka 27 inay hooyadu dareento walac wixii laga rabay xilliga ay walacdo jirka ilaa homusku iska bedelaya hormoonka qofka hooyada uu isbedelaya markay walacay taa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ilmo uu ku beerayo hooyada dhan way isbedelaysaa dabeecadeeda isbedelaysaa jirkeeda isbedelaya homuskeeda isbedelaya wax walba isbedelaya sidii oo kale ay markay caadada ay heshana dabayshu markay ay jirto ay waxay u dareemaysaa sidii qof walacaya oo kale lambarka 28 hooyadu mar walba waxay dareemaysaa haduu jiro xanuunka loo yaqaano dabaysha in kalsooni darro ay ku dhacdo leesh maxaa ula jeedaa dhakhtarka bay tagin waxa la negative kan bay tagin waxa la burad qabta kan bay tagin waxa la tiyuba ku xiran kan bay tagin waxa wixii uu sheegay wax ka duuban aan wixii uu sheegaya kadibna ay ku dhacdo hooyada kalsooni darro intay tagin saa ay tahayna marnaba kuma aadayso marnaba ma dhahayso xanuunkan qalbigeedu mar walba balintaad dejiso oo aad fikirto bal xanuunka horta muxuu yahay waxaad arkaysaa hooyo Soomaaliyeed oo 20 sano 15 sano reer leh inta uu dhakhtar u bitaagantaa ficlan hooyooyinka hadlaaya hooyo kamida 16 sano reer ma ilahayd wax ilmaana ma aysan helin mar walbana waxa lagu beero ilmo ma helaysid wa maca dalika dhakhaatiirta ugu qaalisan bay tagtay wax la soo yirina balaha aan ka ahayn ma dhalaysid ilmaha lagu beero saadarteed kalsooni darro inay ku dhacdo oo xitaa mararka qaar ay dhacdo inay shirki gasho oo dad waxaan quraafadlaan ay u gasho Ilaahay rasuulkiisa mid aan aqoonin 29 qodobkan oo qodob aad u muhiim ah aadna hooyo walba iyo aabbo walbana aad u quseeya qodobkan waxaan rabaa inay ka faa'iideystaan labada dhinacba xagga ragga iyo xagga dumarkaba waxay tahay qodobkaas wuxuu yahay guriga markii la soo galo oo waliba xaajiga uu soo galo in aad dhibsato waliba mararka qaar waxa dhacda isagoo maqan markuu yiraahdo waa soo socdaa in nabar lagu tuuro isla markaana aad dareento culays fara badan oo ku soo fuulaya lambarka 20aad iyadana waa muhiim haddaad dabayl leedahay ninkaagu marka uu hooyada u yimaado ama xaajiga xilliga gogosha biyihiisu way soo degdegayaan ama isagoo hawshii ku jira ayuu waxba iska weynayaan kadibna wuxuu leeyahay meel wax iga jiraan ma garanayo marka banaanka joogo xoog weynaanahay laakiin reerkii markaan u imaado iyo wanaagii iyo farxadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu igu risaaqay ma garanaa wax iga siiyo walaale qodobka 3 in labada dhinacba ay soo istaagaan 0 hooyaduna dee waa qof xanuunsan aabahan xagga uu iska seexdo isla markaana aan la isdalaynin mararka qaar waxaad arkaysaa oo ficlan aniga isoo martay ka Cabdixakiinka Shafaan dad isqaba muddo isla markaana muddo inta la eeg aan wax gogol isku imaanay
xanuunada noocaasi maxay yihiin se maxaa sababa waxaa sababa xanuunka loo yaqaano dabaysha dabayshu waa xanuun jira isla markaana ku yimaada khaasatan hooyooyinka ku badan aabbahana wuu ku yimaadaa laakiin wuu ka saameyn yar yahay marka la dhaho xagga hooyada maxaa yeelay iyadu waa ubax mar walba wax soo saaraysa waa ubax mar walba iyadu wax soo saaraysa saa darteed waxaan leeyahay hooyooyinka Soomaaliyeed haddii aad leedahay xanuunadaas maxay yihiin daawooyinkooda ku bishaarayso daawada aan ku magacawnay farxiso oo hooyooyin fara badan oo murugsan ka tirtay murugtii makaankoodana muddo fara badan aan wax ilmaha ilaahay ku beerin maantana farxad dareemaya murugtii farxad iskugu bedeshay makaankii faaruq waxaana ilaahay ilma ugu beeray waxaan joogaa Nairobi safarkayga markii aan ka soo laabtay muddo 15 beriya 8 hooyo oo waxaan diiwaan gelinay oo midda ugu sokaysa ay hal bil tahay oo dhammaantood ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu siiyay daawada dabaysha markay isticmaaleen ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu awlaad siiyay makaankoodana ilaahay ilma ku beeray aniga idin la hadlaya deriskayga igu xiga guriga aan deganahay ka igu xiga waa gabar Soomaaliyeed oo muddo la qabay isla markaana aan helin wax awlaada hadda waxay maraysaa bil waxaan ay al-shafa diiwaan gelisay taqriiban muddo 15 beri ilaa 16 beri gudaheed 8 hooyo ama 8 dumar ah oo kuwii ugu dambeeyay ee daawooyinka qaatay iyo kuwa horeba ahaa oo la diiwaan geliyay oo 8 ba uur ay leeyihiin aad baad u mahadsantihiin meel kasta joogto ka dalba daawooyinka al-shafa waad ka helaysaa bidilaa tacaala aad iyo aad baad u mahadsantihiin الله يدبرك.